Gista kalena wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland ee gobolka Togdheer ayaa dib u habeyn iyo casriyeynba ka bilowday xafiisyada madaarka ee Burco. Maamulaha cusub ee madaarka Burco Cabdilaahi Yuusuf Axmed ayaa ka warbixiyay ajendaha ka dambeeya dib u habeynta xafiisyada madaarka Burco. ummadda Somaliland waxa ka go'an iyo ay xirsaartay wasaaradda duulista iyo hawada in madaarka uu xiso muhiimadiisa aan garwaaqsanahay in kor loo soo qaado bilixdiisa waa la aragtaa ayadoo ismayaal cusub dalqadaan bisano dhawaan dhagax dhigi doono in haddana xafiisyada inta waxa weyn ribeed ku sameeyay taa macnaheedu ma aha xafiisyo kala laga maarmo inta kuwa la dhisayba ma soo shaqeynaa oo si hagaajin gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle iyo duqa degmada Burco Maxamed Muraad ayaa iyaguna ku amaanay suduwahan daada yar intii uu joogay inuu ka sameeyay isbedel muuqda oo la taaban karo أضياء نقطي وطاي واحد وفرق يجيب قاري إذا ما في أعمال السوق السنة إيش كيا ورمتي كل تعاون في الجارية حتى لو والله كم هذا البلوغ ونادي هذا كل جوي نهاية أما كل طول من ملاك دولية وعالمية وحقبت هديت هاي وزارة دولسة هي هود يهديت هاي سدوها هي هود النظر الوزارة السراكيشة حتى شوفتها سيد الله يسولك شانقا نقالها ولا سكيه الكري وعلقوا نبطه ولا هي الكري وحكوا له هي الكري قلب محلقوا قبني لكن لما هو حكى أكله هذا شيء هو إسلا شانقا maamulahan cusub ee madaarka Burco ayaa intii uu joogay waxa uu ku sameeyay xafiisyadii madaarka dib u habeyn iyo casriyeynba Cabdi Faarax Cabdilaahi